السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kuwani waa macluumaad kooban oo aan soo aruurshay. Marka ay biyaha baddu isu bedelaan baraf sida ka dhacda meelaha aadka u qabow, barafkaasi cusbo ma leh ama aad ayay ugu yar tahay cusbada ku harta. Biyahaasi badda marka ay barafka isu bedelayaan ayay cusbada hoos isaga riixaan, taasoo ka dhigta barafka mid aad cusbada ugu yar tahay. Barafkaas oo dul sabeeya biyaha badda oo aan hoos u dhicin ayay ka faa'iidaystaan noolayaasha badda hoosteeda ku nool, maadaama uusan barafu ku soo dhacayn oo baddu inta kore kaliya baraf ka tahay hoostana biyo caadi ah oo aan barafoobin tahay. Quraanyadu marka ay ku baqtido hooygeeda ayaa muddo 2 maalmood ah ay halkaasi oolaysa. Labadaas maalmood kadib ayaa waxaa loo saaraa bannaanka oo ay quraanyadu meesha degan ogaataa in baqti u yaallo godka. Haddaba saynisyahanada ayaa isweydiiyey maxaa keenay in baqtiga quraanyadaas 2 maalmood kadib la qaado oo isla markiiba loo qaadi waayay. Waxa ay baaraanba waxa ay ogaadeen inay quraanyadu marka ay baqtido muddo kadib ay soo siidayso maado la dhaho oleic acid. Markaas ayay quraanyada kala garataa inay baqtiday oo meesha ka qaada bannaankana geysa. Saynisyahanadaas ayaa markaa waxa ay maadadaas mariyeen quraanyo nool, isla markiiba quraanyadii kale ayaa ku soo orday oo iyagoo u malaynayay inay baqtiday qaaday oo bannaanka geeyay. Magaalada London ayaa 1939kii dagaalkii labaad ee adduunka ka hor waxa ay dadkeedu gaarayeen 8,615,000. Xilligii dagaalka iyo wixii ka dambeeyay ayaa dadka degan ay hoos u dhaceen. 2015kii ayay ahayd markii u horeysay ay tirada dadka degan London ay ka bataan dadkii deganaa 1939kii. Malabku dadka caafimaad ayuu u leeyahay, waxaana uu ka mid yahay cunooyinka aan xumaan oo aan isbedelin, sababtoo ah biyaha ku jira ayaa aad u yar oo waa wax ka yar 14%. Sonkortuna aad ugu badan tahay, taasoo keentay in bakteeriyada iyo ilma aragtada kale ee cunnada fasahaadiya ay ku kori waayaan. Malabka oo ka yimaada caloosha shinnida ayaa waxaa kaloo ay shinnidu ku dartaa maadooyin la dagaalama bakteeriyada. Arrimahaas oo dhan ayaa waxa ay ka qayb qaataan in malabku uusan isbedelin muddo aad u fara badan. Korontada si loo dhaliyo waa in wax soconaya loo bedelo koronto, sida in daynamada matoorka ay wareejiso dabayl ama biyo socda ama shidaal, taasoo ay ka dhalato korontadu. Adigu waa in waxuun ay wareegayaan si koronto u dhalato. Tusaale ahaan baaskiilada ayaa waxay leeyihiin laambadda iftiinta marka qofku wado baaskiilkaas oo uu lugihiisa dhaqaajiyo. Haddaba shirkad ayaa waxa ay samaysay nal iftiin bixiya oo aan u baahnayn shidaal, iyada oo ka faa'iideysanaysa gravity-ga ama soo jiidashada dhulka. Ilaa wixii kor loo tuuro dhulka ayay ku soo dhacaan. Laambadda ayaa meel la surayaa oo ay ku dhagan tahay boorso. Boorsadaas ayaa si tartiib dhulka u aadaysa iyadoo socodkaasi iftiiminayo nalka. 20 daqiiqo kadib ayay dhulka taabanaysaa, markaas ayuu nalku damayaa. Isagoo qofku haddana kor u qaadaya boorsada oo 20 daqiiqo haddana ifaysa ilaa ay boorsadu dhulka ku dhacdo. Mar walba uu qofku rabo in nalku iftiimo ayuu boorsada kor u qaadaya, taasoo keenaysa in muddo 20 daqiiqo ah uu nalkaasi ifo. Ninkii sameeyay calaamado badan oo wadooyinka lagu isticmaalo iyo weliba waxyaalo badan oo ka qayb qaata amniga waddo maridda, sida calaamadda stopka, wareegga taraafikada iyo wadooyinka hal dhinac loo socdo, waxaa la dhihi jiray William Phillips Eno. Ninkaas oo loo bixiyay aabbaha nabadgelyada taraafikada ayaan weligiis gaari wadin. Intaas noogu joogto macluumaadkii aan maanta soo gudbiyay. Intii aan mar dambe kulmi doono, nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.